faraacintu waxay ka mid ahaayeen bulshooyinka ka tegay taariikhda qoran habsawirro farshaxan ah buugaag iyo raadad kale oo ay kaydiyeen waxay dunida inteeda kale la lahaayeen ganacsi xooggan oo qaybba ay meel ka soo iibsadaan dhulalka sida weyn taariikhdooda looga xusay si gaar ah xilliyadii boqorradii ay ka midka ahayd xadshabut waxaa ka mid ahaa goob ay u yaqaaneen dhulkii udugga ama bunt waxay la lahaayeen xiriir ganacsi oo xooggan waxayna ka soo iibsan jireen waxyaabaha aysan ka heli karin dhulalka kale sida luubaanta ugaarta iyo alaabaha ay u aadi jireen dhulalka fogfog sida dahabka iyo udugga cuntada in kasta oo daraasado badan ay qaarba meel ku tilmaameen haddana dhul udug ama land of bunt waxay inta badan qoraallada taariikhdu isku waafaqeen inuu ku yaal dhulka bari ilaa waqooyiga Soomaaliya ee ku teedsan gacanka cadmeed ilaa albaabada badda cas haddaba sidee ganacsigan ku bilowday awood intee la eg ayuuna gaaray waa su'aalaha aynu ku dul istaagayno muuqaalkeenna maanta boqortooyooyinkii Faris baabil iyo masaaridii faraacinta ahayd waxay ahaayeen dad horumarsan marka loo barbar dhigo ummadihii ay isku waqtiga ahaayeen waxay aad caan ugu ahaayeen inay ganacsi iyo wax isweydaarsi la yeeshaan ummadihii kale ee ku noolaa dhulalka u dhow iyo kuwa ka fogba sida la wada fahmi karo markii dadku helo waxyaabaha lama huraanka u ah nolosha sida raashinka biyaha iyo dhisidda ilbaxnimada sida guryaha waxaa dabiici ah in la raadiyo waxyaabaha dheeraadka ku ah nolosha sida walxaha lagu raaxaysto oo ay ka mid yihiin dharka quruxda badan dahabka iyo waxyaabaha la isku carfiyo ama wax lagu carafsado waana isla ujeeddadii boqorradii faraacintii Masar ay safarro ugu aadayeen goobo badan oo caalamka ahaa si ay u helaan udugga sida fooxa lubaanta iyo waxyaabo kale oo ay ugu horeeyeen dahabka foolka maroodiga iyo dhirta la xardho ee agabka laga sameeyo gacanka cadmeed ee isku xira badda cas iyo badweynta Hindiya dhanka soo xiga geeska Afrika waxay ahaayeen goobo safarku uu ku badan yahay waxaa mari jiray safarrada isku xira Masar iyo Faris Hindiya iyo Shiinaha iyo dhulalka bariga fog jira shixnadaha sida agabyada kala duwan ayaa marinkan ku soo xiran jiray iyaga oo wax isweydaarsi la sameyn jiray dadkii dhulkan deganaa waxaana halkaa ka abuurmay ganacsiyo dhex mari jiray dadkii deganaa magaalooyinka xeebaha kulaala iyo doomihii ganacsi ee u rarnaa dhulalka ay ugu magac dheerayd Masar ee ka imaanayay bariga dunida dhulalkii Faris iyo Carabta dhow sida Yaman iyo Cumaan raadadka taariikheed ee faraacinta waxaa ka mid ah qaybo dhan oo si gaar ah loogu diiwaangeliyey ganacsigii ballaarnaa ee dhulkii udugga kala dhexeeyey faraacinta waxaana la sheegaa in ganacsigani socday muddo ku dhow 1000 sano sida ku xusan diiwaanada keedadka taariikheed ee dawladda Masar dalal badan oo geeska Afrika ah sida Eritrea Suudaan Itoobiya iyo qaybo Yaman ka mid ah ayaa sheegta in dhulkii udugga uu ahaa dhulkooda waxaa sidoo kale jira qoraallo ku dooda in dhulkii loo yaqaanay bunt uu ahaa dal jira oo isku ahaa qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed dhulka Xabashida Suudaan iyo Yaman oo xilligaa intuba dal isku ahaa balse ma jirto diiwaanno arrintaasi difaac u noqon kara oo taariikhdu ay soo warisay cadeymaha xooggan tilmaamaha raadadka qoran iyo qaybo badan oo la xiriira agabkii ay faraacintu ka soo iibsan jirtay dhulkan ayaa tusaaleynaya in si aad u dhow uu yahay dhulka Soomaaliyeed ee ku teedsan inta u dhaxaysa badweynta Hindiya iyo badda cas gaar ahaan deegaanada dhaca gacanka cadmeed archaeologist lagu magacaabo Navile Chetik oo ka mid ahaa dadkii sida aadka ah wax uga qoray xiriirkii faraacintii hore kala dhexeeyay dhulkii bunt ama dhulkii udugga ayaa laba arrimood sheegay inay halboole u tahay in Soomaaliya ahayd dalkii loo yaqaanay bunt ee ku xusnaa diiwaanada faraacinta bunt waxay caan ku ahayd dhoofinta walxaha wax lagu carfiyo sida fooxa sidoo kale waxay ku suntanayd halka ay ku tiilay oo ahayd buuro u dhow xeebta iyo toogag ama balliyo badda u muuqda sida ku cad sawir gacmeedyada ku xardhan qasriyadii boqorradii la oran jiray Xadshabut maadaama fooxa dhulka Soomaaliyeed uu ka udug badnaa kan dalalka u dhow qaarkiisna kaliya halkan laga heli jiray waxaa jirtay sabab keenaysa in masaafada intaas la eg ay u soo aadaan faraacintu si ay u helaan fooxa carafta sare leh ee dhulkan gaarka u ahaa sidoo kale dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada bariga waa halka kaliya ee leh dhul buuraley ah oo ku gaadaaman badda gacanka cadmeed iyo balliyo biyood barbar yaala badda nawaaxigeeda
oo ah tilmaamta ku xusan raadadkii iyo farshaxankii faraaciinta sidoo kale waa dalka keliya guud ahaan dalalka geeska Afrika ee leh halka ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed sidoo kalena ku xusan sooyaalkii ganacsigii dahabka ee Hindiya ay u iibgeyn jirtay xeebaha u dhaxeeya badda cas iyo badweynta Hindiya dhanka kalena waxaa jira raadad badan oo laga helay godadkii laga soo faagay agabyadii ay ka tageen faraaciintu waxaana ka mid ahaa usha geeljiruhu qaato barkinta alwaaxa ah ee xoolo dhaqatadu qaadato si madaxa ay ciidda uga ilaashadaan iyo dhaqamo kale oo xilliyo hore ka jiray dhulka Soomaaliyeed oo kuwa u eg laga helay raadadkii faraaciinta xilligii ugu horeysay ee faraaciintu xiriir la yeelatay dhulka Soomaaliyeed waxa uu ahaa markii uu talada hayay fircawnkii lagu magacaabi jiray Sahure taariikhyahanada qaar ayaa sidoo kale tilmaama in Masaaridu ay taqaanay dhulkan waqti ka horeeyay xilligan oo ku aadanaa xilligii fircawnkii Khufu oo ka mid ahaa boqorradii ugu magaca dheeraa faraaciinta xilligan waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa ku dhowaad 2500 sano ka hor miilaadiga qarniye kadib waxaa ganacsigii sii xoojiyay boqorradii dambe sida ninkii la oran jiray Senusret Amenemhat iyo Mentuhotep kuwaas oo qaarkood la sheego jacaylka ay u qabeen in ay dhulka soo arkaan ay soo raaci jireen safarada u soo kicitimaya dhulkan xilliga ugu taariikhda badan ganacsiga ugu xoogganna uu dhex maray Soomaalida iyo faraaciinta waxa uu ahaa xilligii ay talada haysay boqorradii la oran jiray Hatshepsut oo xukunka haysay waqti ku dhow 1500 sano ka hor miilaadiga Hatshepsut waxay dhistay nidaam u eg dekedo oo ay ku soo xirtaan doomaha si gaar ah doomaha ka imaanayay dhulka uduga waxay dhistay kooxo doomo ah oo u socdaala dhulka gacanka cadmeed xilliyada qaarna iyada ay raaci jirtay safarada si ay waxa ay doonayso ay u soo iibsato waxay u taqaanay dhulkan loo yaqaano maanta Puntland dhulkii ilaahyada sabab la xiriirta fooxa iyo lubaanta oo ay Masaaridii hore ku uumin jireen sanamiyadooda sidoo kalena u adeegsan jireen carfinta meydkooda daaweynta dadka xanuunsan iyo qurxinta jirka waxaa jira safar caan ah oo ay ku timid dhulka uduga ama Punt waxaana la sheegaa in safarkan uu ahaa mid ay gacaltooyo iyo soo dhaweyn ugu muujinaysay dadkii dhulkan deganaa oo muddo dheer xiriir la lahaa dahab badan iyo hadiyado ayayna ugu sii qaaday doomo waaweyn oo safarkeeda qayb ka ahaa taariikhda ugu badan ee laga qoray xiriirkii u dhaxeeyay dhulkan iyo faraaciintana waa mid la diiwaan geliyay xilligii ay talada haysay Hatshepsut oo ka mid ahaa xilliyadii ugu baraaraha badnaa taariikhda faraaciinta dhulka Punt wuxuu caan ku ahaa uduga dhulka intiisa kale ku yar sida fooxa iyo lubaanta fooxa oo ahaa guud ahaan walxaha ugu faraha badan ee laga dhoofin jiray dhulkii Punt waxa uu kaalin muhiim ah ku lahaa dhaqankii diintii iyo nolol maalmeedkii Masaaridii hore waxaana laga dheehan karaa maqaamkii uu ku lahaa dalka Punt ilbaxnimadii Masar dhumucda qormooyinka ay ka tageen faraaciintii hore oo ku saabsan dhulkan sidoo kale waxa uu kaalin weyn kaga jiraa ganacsiyadii dhex mari jiray Soomaalida iyo faraaciinta kaasi oo aan kaliya ku koobnayn uduga ee waqtiyada qaar isdhaafsan jiray ganacsiyo ku qotoma hadba dhinac walba waxa uu haysto oo uu kaga beddesho kan kale waxa uu sito sidaasna waxa ku dhisnaa ganacsi xooggan oo labada dhul u dhaxeeyay muddo 1000 sano ku dhow